Galcad Media News. Galcad Media News. bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada daawadayaal warka Galcad Media qodobada ku daawan doontaan waxaa ugu dooroon maxkamadda ICJ oo yeertay Soomaaliya iyo Kenya kadib markii Kenya codsi kala dalbatay qorshe cusub oo halis ah oo dawladda Qatar ay la damacsan tahay dalka Soomaaliya oo laga dhigay sargaal sare oo shabaab ah dhaawacna ah oo lagu qabtay dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan Umar Finish oo dawladda ku eedeeyay inay xilalka gobolka iyo taliyaasha ciidanka u dhiibtay dad badan oo ciyaalka xaafadda ah ciidamo ka tirsan Kenya oo qarax lagula beegsaday gobolka Waqooyi Bari warka dibadda daawadayaal waxaa ka mid ah Donald Trump oo meel fagaara ah dalal ajnabi ah uga codsaday inay baraan ninka la tartamaya hagaag haddii aad ugu cusub tahay subscribe channelkan si aad u hesho war ku saabsan akhbaaraadka caalamka intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhowaada daawadayaal Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News. maxkamadda ICJ ayaa kulan degdeg ah iskugu yeertay dalalka Kenya iyo Soomaaliya kadib codsi cusub oo ka yimid dhanka Kenya maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ ayaa kulan degdeg ah ugu yeertay Soomaaliya iyo Kenya oo uu ka dhaxeeyo muran dhanka xuduudda badda ah sida ay sheegeen ila wareedyo aad lagu kalsoon yahay arrintan ayaa timid kadib markii Kenya ay codsi cusub u dirtay maxkamadda iyadoo doonaysa inay dhageysiga kiiska mar kale dib loo dhigo ilaa bisha September ee sanadka 2020 maxkamadda ayaa horey u ogolaatay codsiga Kenya ee ahaa in kiiska dib loo dhigo waxaana dhageysiga dacwadda oo markii hore la qorsheeyay 9 September dib loo dhigay ilaa 4 bisha November ee soo socota codsiga cusub ee Kenya ayaa waxaa si xoogan ugu horyimid Soomaaliya oo ku adkeysatay in kiiska la dhageysto 4 November sida maxkamadda ay horey u qorsheysay sida aan xogta ku helnay waxaa hadda magaalada Hague ee xarunta maxkamadda ku sugan ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo qareenka guud ee Kenya maxkamadda ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ku dhawaaqdo go'aankeeda ku aadan codsiga cusub ee dalka Kenya kadib marka ay dhageysato wakiilada labada wadan ka kala socda sida ay sheegeen ila wareedyada qorshe cusub oo halis ah oo Qatar ay la damacsan tahay Soomaaliya ayaa laga digay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka digay Qatar oo sheegay in Soomaaliya ay uga soo wajahan tahay dawladda Qatar dawladda Carbeed ee Qatar oo galaangal siyaasadeed oo aad u xoogan ku leh siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan madaxda haatan dalka maamusha ayuu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in ay bedeshay qorshaheedii hore isla markaana sanadiyada 2020-2021 doorashooyinka lagu waday inay dalkan ka dhacaan ay muruq iyo maalba ku soo saari doonto xubno gaar ah Qatar waxa ay bedeshay qorshihii hore ay maalmihii ugu dambeeyay doorashooyinka dalkeena ka dhaca boosal caaga ku keeni jirtay waxayna haatan wadaa qorshe cusub isla markaana duug ah oo ay ku doonayso in doorashooyinka 2020-2021 ku taageerta mid ka mid ah madaxda filla Soomaaliya dawlad goboleedkii taageera qorshahaas waxay u fidinaysaa taageero dhaqaale oo toos ah halka kii ka hor yimaadana ay dagaal toos ah la geliso ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aad u dhaliila dawladda Soomaaliya qoraalkiisa oo intaasi ka dheera ayuu siyaasiga shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee wanaaga ka raba dalkan wuxuu ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan damaca dawladda Qatar waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta damaca kale loolanka doorashada 2020-2021 in meel looga soo wada jeesto qaska iyo faragelinta taban ay dawladda Qatar ka wada dalkeena ayuu ku soo gabagabeeyay baaqiisa hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM gaar ahaan kuwa Djibouti ayaa dagaal xoogan ay ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan shabaab oo ku sugan
tuulooyin hoos yimaada degmada Buulo Barde ee gobolka Hiiraan waxaa ka dhashay khasaare kala duwan. Dagaalka oo ahaa mid xoogan ayaa qaatay muddo ka badan saacad waxaana labada dhinac isku adeegsanayeen noocyada kala duwan ee hubka culus. Tuulooyinka uu dagaalku ka dhacay ayaa lagu magacaabaa Biyameer iyo Buurweyn waxaana saraakiisha militariga Soomaaliya ee gobolka Hiiraan ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen sargaal sare oo ka tirsan shabaab oo dhaawac ah. Gudoomiyaha degmada Buulo Barde Cabdicasiis Duuro oo aan la hadalnay ayaa inooga warbixiyay sargaalka ay soo qabteen xilkiisa iyo sida uu yahay dhaawaciisa. Warku joogto noo yahay anaga laakiin alxamdulillah anu wax dhibaatooyin ma gaarin. sargaalka saraakiisha nimanka nabadiidka al-shabaabna waa gacanta lagu soo dhigay anaga qaadnay. marka xogta aan ka helay dadweynaha oo shaqaynta nagala dhexayso marka waaqin waa iska joogto maanta intaasaa dhacday si nabadaan ku nimid waan soo gudanay waajibaadkii aan waadnay. wax kaloo khasaaro oo dhacay ma laha. deegaanaduna waa meel biinaf la yiraahdo tuulo biinaf la yiraahdo iyo Buurweyn. sargaalkana asagaas waa miiriya weliba ku haynaa anu dhaqaatiiraan leenahay waajib intaan kalena markaan gudanay intii kala qodaysa kula kuuriga doonto. bal hadda deegaanadii uu dagaalku ka dhacay sargaalkan ku soo qabatay ayaa gacanta ku haya. anaga gacanta ku hayna awal baqaray soo galeen waa maqalnay waan ka soo qabanay mana iman karaan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Finish oo khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu soo dhaweeyay taliye ku-xigeenka cusub ee booliska Soomaaliyeed Cismaan Cabdullaahi Kaniif ayaa ka hadlay habka madaxda dowladda oo maran xeelka ay magacaabayaan. waxa uu sheegay in madaxda dowladda federaalka ay xeelka u salaaxeen ciyaalka xaafadda hase yeeshee uu rajeynayo in doorkooda qaadan doonaan rajo weyn uu ka qabo in la yimaadaan isbedel ka duwan madaxdii ka horeysay. hadalka gudoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Cumar Finish ayaa ku soo aadaya xilli madaxda dowladda federaalka ay xilalkii ugu badnaa u magacaabeen dad dhalinyaro ah kuwaas oo aan khibrad badan u lahayn xilka loo dhiibay. ciidamo ka tirsan dowladda Kenya ayaa waxaa qarax miina lagula eegtay deegaanka Haluuqa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. qarax oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa waxaa lala eegtay gaari ay la socdeen kolonyo ka tirsan ciidanka Kenya kuwaas oo ku safrayay inta u dhaxaysa deegaanada Haluuqa iyo Galamla ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. wararku ayaa intaasi ku daraya in khasaare oo ka dhashay qaraxa inkastoo ilaa hadda aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay qaraxaasi. dhanka kale al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaas waxaana ay sheegeen inay khasaare kala duwan gaarsiiyeen ciidamadii Kenya ay qaraxa la beegsadeen. dowladda Soomaaliya ayaa dib u dhisay safaaradihii ay ku lahayd dalalka caalamka. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa si faahfaahsan uga hadlay qorshaha dowladda ee dib u dhiska safaaradihii ay ku lahaan jirtay Soomaaliya dalalka caalamka. Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay in dib u furista safaaradaha uu horseedi doono xiriir wanaagsan oo ay dowladaha dunida la yeeshaan Soomaaliya isagoo sheegay in Mareykanka uu dib u furay safaaradihii Muqdisho 30 sano kadib. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka qayb galay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa xariga ka jaray dhismaha safaaradda Soomaaliya oo lagu bixiyay lacag aad u fara badan. markaana daawadayaal warkii dibadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa meel fagaara ah ugu baaqay Ukraine iyo Shiinaha inay baraan Joe Biden iyo wiilkiisa. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden ayaa ugu cadcad tartanka ay dimuqraadiyiinta ugu jiraan doorashada madaxtinimada ee 2020 wuxuuna udub dhexaad u yahay dadaalka lagu doonayo in xilka looga qaado Trump. Shiinaha waa inuu baaritaan ku bilaabaa labada Biden ayuu yiri Trump isagoo ka hadlayay wiilka Mr Biden ee lagu magacaabo Hunter. dimuqraadiyiinta ayaa waxay madaxweynaha Mareykanka ku eedeeyeen inuu deeq military u isticmaalay qaab uu ku cadaadinayo Ukraine si ay u soo qufaan xumaanta Biden. wicitaanka dhanka telefoonka ee 25 Juulaay dhex maray Trump iyo madaxweynaha Ukraine ayaa wuxuu horseeday inay cabasho muujiyaan koox ka shaqeysa sirdoonka oo xogta bixiyay taasoo sababtay in laga hadlo xilka qaadista Trump. hase yeeshee Trump ayaa sheegay inuusan wax qalad ah sameyn baaritaanka Koongareeska ee ay ku doonayaan inay meesha uga saaraan wuxuu ku tilmaamay mid lagu baacsanayo. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelkan.
قلعة ميديا قلعة ميديا قلعة ميديا قلعة ميديا